mas-uuliyiinta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Qaatumo oo ku sugan qayb ka mid ah wadanka Djibouti ayaa ka hadlay heshiis dhawaan ay wada gaareen Somaliland iyadoo heshiiskanina uu ahaa mid siyaabo kala duwan dadka deegaanada Somaliland iyo Qaatumo ku sugan ba ay markaasi u hadalhayeen wariyahana Cabdikariin Olola ayaa waxa uu wareystay injineer Maxamed Xasan oo ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka Qaatumo haatan waxa khadka si toos ah ugu jira oo xiriir aan kula sameynay wadanka Djibouti telefishinka Som News injineer Maxamed Xasan Xaaji oo kamid ah gudida farsamada ee maamulka Qaatumo ee wada hadalada Somaliland iyo Qaatumo ee uga socday Djibouti injineer Maxamed Xasan Xaaji ku soo dhawow Somali News walaal waan mahadsantahay Cabdikariin oo adiga Som TV labadiiba aad baad mahadsantihiin la socotaan gudigayada farsamo hawsha naloo diray ee naloo igmaday waxa ahayd laba qodob oo kaliya kornaanu 11 qodob ee Addis Ababa heshiiskii hore ka soo dhacay istul taagno oo aanu eegno 11 qodob wixii ka hirgalay iyo waxaan ka hirgelin iyo shirka soo socda ee kan ku xiga ee Somaliland iyo Qaatumo yeelan doonto inaanu muddo oo waqtina u qabano u cayino meelna u qabano u cayino ajandana u sameeyno qodobka labaad oo kale taakulaynta abaaraha Somaliland iyo Qaatumo iyo iskaashiga ay ka wada shaqeyn karaan qodobkaas oo kale waxa jira in gudiyo abaaro ka tirsan maamulka Qaatumo magaalada Laascaanood lagu xiray kaasoo kale maxaad ka tiraadeen maadaama aad tiraadeen waxaan iska kaashanaynaa abaaraha kaasoo kale waan ka wada hadalnay laba dhinacba waanu ka wada hadalnay qodobka jiray heshiiska ku jira 11 qodob oo ahaa inaan xabaytaatee wax farqalala iyo carqalada inta wada hadallo socdaan uusan jirin oo aan isfaragelin taas qodobka waa kaga wada hadalnay nimanka hadii labada gudda taakulada Qaatumo ahaa ee Laascaanood lagu farageliyay dhinaca kale qodobka kan qodobka la jiro heshiiska ku jiray oo ahayd in 11 oo ahayd in Somaliland iyo Qaatumo ay iska kaashadaan abaaraha iyo waliba hay'adaha aadiyo qodobadan aad soo saarteen laakiin ma loo oran karayaa qodobadan iyo kuwii hore maalintii hore soo baxay iyo shanta qodob ee hadda gudidan farsamadu ay soo saareen inay soo wax culaysaba ku fadhiino ay yihiin korkaxaadis oo aad wada hadalka idinka dhaxeeyay idinka iyo Somaliland ay maarmi waa noqotay oo aad ka soo saarteen qodobada ma loo oran karaa horta kan ku sheegay Cabdikariin anagu ma aan gudi farsamo ahayn وما حل سارنين قضبة كله يو قانا كله عصوبة كي كود يتوانكي هراء السبب وكلته إنها مساس صوت سارنا وما أنا حل سارنين ذكر وان كل لينا وحكي لي أنا حل سارنين وحين كود يتوانك قضب محاكي هرجلين محاكي هرجلين وين تاسي كاتحل خيبوها يأتندها لبعض معمول وهم وحن مدين ولكر كحادث كتيران loo baahan yahay in qodobada muhiimka ah ee u badan masiiriga in loo daadego waana lagu khasbaya goor kasta la gaaray waa la gaaraya waana loo daadegaya haddaan kuugu celinaya haddii labada maamul ay darjar gelin waayaan oo si degdeg ah qodobada ka horeeya ee aad ku tilmaantay korka xaadinta ay u dhaqan gelin waayaan way adkaanaysaa in qodobada kale ee dadku tabanayo loo daadego sababtoo ah injineer waxa kaloo wararka kale ay sheegayaan gudidiina farsamo inay saameyn ku yeelatay doorashadii madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la yiri markii qaarkood waaba lagu kala kacay ka waran arrinkaasi ma jiraan hadda wax ku kala kacay la yiraahdaa ma jirin marna ma aanan kala kacay ma jiray marmar hadalka iyo dooda intay adkaadaan meel jaxargelayeen laakiin marna boqolkii aan fadhiin kuma aanan kala kicin waana iska hadal iyo caadadiis weeye garinaba ninka ma wada qosulso waa jiray mararka laakiin haba yaraatay wax khilaafa iyo wax kala kicida iyo waxaan markii soo dhaafay qolkii aanu ninka ugu badan marka xogaan nervous noqdo intuu kaco saameyn aan ka hayn iska hambaliyada Soomaaliya oo dhani ay hor ordaysay oo u hambaliyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka badan aan ahayn oo kale oo saameyn oo doorashada Muqdisho lagu yeelatayna ma jirto injineer aad baad u mahadsantahay waxaad qodobka shanaad ku sheegteen in si wada jir aad u cambaareynaysaan falkii nabadgelyo xumadaha ee khalkhalka Puntland ay ka fuliyeen madaarka Buuhoodle marka ma la oran karaa
khaatumo iyo somaliland waxay usoo wada jeedeen inay puntland iyada laftigeeda ay weerar ku qaadaan bal ka war arrinka qodobkaasi muxuu tilmaamaya wallahi anagu cidna weerar kuma nihin cidna weerar ku qaadi mayno weerar in la isku qaadana waaba kasoo horjeednaa khaasatan markaan ku hadlayo afka khaatumo laakiin dee qofku hadduu ku dayn waayo oo aad aadkiso oo uu ku dayn waayo oo aad aadkiso tanna waa afis kale saanu ku dayayno waad ogtahay wixii naga qabsaday airportka buuhoodle maalintaan kasoo baxaynay niman dhalinyaro oo ehelka yaga ah oo dadka yagiya ayaana lagu soo diray marka dee dadku haddii afis tegi waayo waa laga yaaba de marka dambe waxaa sheegayso iyo ka daran inay yimaadaan laakiin waxaanu anagu hadda ku talinayna iyo waxaanu diyaarunahay soona maaha engineer su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinaya waxa weeye dhanka puntland somaliland iyo puntland marka la eego maxay khaatumo wadahadalka sida somaliland oo kale oo ay dagaala ka dhexdhaceen oo deegaana ay ku kala qabsadeen puntland colaadayda ka dhexaysa horta waa mid nooc maa maxay tahayna walaalow annaga wax colaado haba yaraatee puntland naga dhexaysa aan ka ahayn faragelinta qaawan iyo dulmiga iyo gardarradaas ay mar walba nagula kacaan iyo meel walba nagula kacaan weliba marmarka qaarkood ay u dheertahay aflagaado iyo afxuma u dheertahay weliba marmarka qaarkood ay u dheertahay inay yidhaahdaan annaga ale waa deegaan waanu leenahay oo beesha caalamka iyo annaga iska kaayo hor keenaan aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu injineer maxamed xasan xaaji oo ka mid ahaa xubnihii guddida farsamada ahaa ee maamulka khaatumo matalayay Djibouti injineer aad iyo aad baad umahadsan tahay waa mahadsan tahay